عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك الصعدة أيا وحي أركنين مركا آدو سو صعدو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو صعداي جوك سدبولي وجوجي عمر عيدنك ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا آيات هاي أنكم مغان قلنا مسنين دين لقول يهي أو دين كي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آيات هاي مسنين نف بني آذن سوقويي وحق دركو السود دلي باتهاي مركاسو انتا منا ميهبو يلي وحان كيمي دبيوري بصراء يا كيمي دا بصراء فما قالكو تال العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغاها هاي هلكا سانو جوغو دنبي إيقا دعي بو دنبي كا دعي محوية خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري بان انتو قبتيبو إيقا جريبولي حدكو إمريي هاي تمهينا إيقا حيري هاي فرسنا انتو إيقو قادبو مقالة دي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yiri wajigeygii biga madoobayay buu marka naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imma inaan Aba Muusa al-Ash'ari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imma inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabayaan aan la cabo waxay cunayaan aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imma inaan adiga ku imaado iga qabatid amiirka muuminiinta مركا عمر بن الخطاب أيايد رضي الله عنه إن أديتي مدي إلهي بكوا فجيبولي إن قال أوتكتا هيالين إن أبا موسى الأشعري سجن انتود الأرض متآد شانا هيالين مرد ذلك إسوغا ديبوي أنا أقول أنت هذا حتى شقك قبل يا أبو الهوش وانقبض بولي ورقد بوقري ورقد نكر عمر وديبن السجيب ورقد وديب السجيب كله أمير المؤمنين عمر اكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه عاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي وقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسب وقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصو نقد نكي عمر ولي بنيكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبن أوهيي أيود هذا بايبك سعوتن بصراء يوم مركا وقيم أبا موسى الأشعري أو خطبة دينيا مركز أمير كي المؤمنين عمر باي صادري عجيب مستاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar aad ku tiraada la fariista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin oo toobad keenay toobadu adoonka Ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco dhan waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtana cafiya anna waan cafiyade Aba Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii sida uu soo dhaxmariyay waa walaalkiin oo toobad keenay Umar bin Khattab uu tagay Umar buu fariinta inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taadnimadu mas'uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya malqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nabigu ka baxayo ku dhici jiray ninka reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax markaa buu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxaan la jiifay
gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aan igama yahayna waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi halka ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayadda iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garan oo ima fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo ma haynta soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegaaye mashruuc gaalow innakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi mu'minku balaayo ma sheego mu'minku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war mahayad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg mu'minku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayey laakiin wuxuu bal siiro farsamo leh ayuu wejigaaga bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiina qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo kiina may fahmin walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay halkaa buu ka fahmay yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi kaale ila soo cashee koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii koob caanaa maxaa yaalla koob caanaa ku yaalla nebi allow yaa abaa hurayra maskiidkii ku noqo ahlu sufiyoo dhan inoogu wadeen caawa caanaha inala cabaane waa koob caanaa abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo laakiin niyaddan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigoonba kugu fiicnaaye miyaa lagu dhiibaa ha ku cibaadaysatid 2 habeene ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee maskiidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmaheeda waxba cunin dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu ka odhanayna abaa hurayra caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya hemin buu laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedheen uu u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib ha kana qaadin buuhi ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane waa koob caanaha ragga loo yeedhana waa ragee ahlu sufa kii horeeya markaasuu u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kalean u dhiibay halkoogii 90-70 nin iska dhe markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadh fadhiiso aduu cab waan cabbi ku celi haddana waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salaatu wasalaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay safwaan binu umaya ayaa cumayr binu wahab ninka la odhan jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina
ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر باللغا سو نقضي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahir ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn leeygu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo itu saban oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa ha waan samayn karaa ciyaalkaagan aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu kay waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaa la 400 kilometer وصو سocday aalaadkan zamankan imika isku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas وصو socday Madiina soo galay Umar ibn Wahab isagoo seeftiisa jeeni qaaran mar ali markuu Umar ibn Khattab baa yiri Umar ibn Wahab ha shaytaan min shayatiin Quraysh weeyane seeftiina waa ka jeeni qaaran ee qoorta ku sitee ordo nabiga ilaaliye buri nabiga noo ag joogo nabiga ka ilaaliye sallallahu alayhi wasallam shar uu socday khayr uma socday markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi Allah Umar ibn Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiya xaadu timide buu ka yiri waxaanu imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badar iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma arrinkaad u socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigiyo Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid Ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay Allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waa ku rumeyn adigane ilaahayna waa rumeyn tawxiidka iqrib ku yiri halkii buu ku qori ilaahay ka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan xabas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع dhagax sidata Abi Bakar bay u timid oo halkan fadhiya rasuulkuna waa fadhiya sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar iyo rasuulku dhinac isku hayaan markaas ay leedahay Abu Bakar saaxiibka maanu ileeyahay naar baad ku dambayni doontaa oo gabaygiisa igu soo daray gabay bay quraanka u haysataa moogta Abu Bakar rasuulku eega haddaan maanta Muhammad aanu aan arki lahaa bay tiri dhagaxa isaga ustaag madaxa basho ka siin lahaa bay tiri markay iska noqotay buu Abu Bakar nabiga soo eego yaa rasuulallah mayna ku arkayn may aniga aragaygu arki lahayd baa Ilaahay ka qaaday guud inagu hebel muxuu wax ku arkaa ishu wax ku arkaa baan leenahay may amarka Ilaahay wax ku arkaa dhagtu wax ku maqlaa may dhagtu amarka Ilaahay baa u baahan tahay inay maqasho lugtaadu inay socoto Ilaahay amarkiisa u baahan tahay خالق وإله marka Ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslima laga raba Ilaahay inuu dhab u garto tasarrufaadka caalamka Ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibi waa Ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ka bilaabata lillah kun abdan lillah Ilaahay adoonkiisa oo dhab noqo خلاصة القرآن marka culimadu ka warameen khulaasatul adyan waxli wixii diin samada ka soo degtay oo dhan khulaasadii waxa laga dhigay quraanka kariimka quraankii kariimkiiba la soo khulaaseeyay suuratul faatiha khulaasadii quraanka laga dhigay suuratul faatiha ayaa la khulaaseeyay labada aayadood culimadu isku keeneen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in خلاص qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi ilaahay jalla wa ala wa ka quraanka kulaha salaada waanu qaybiyay anigii adoonka ayaa kala qaybsanay oo salaadu waa suuratul faatiha magaceega weeyaan suurada faatihada salaad baa la yiraahdaa faatiha la yiraahdaa ummul quraan baa la yiraahdaa sab'ul mathani baa la yiraahdaa suuradaas waa suurada uu nabigu yiri walladhi nafsu muhammadin biyadihi ma unzilat fi at-tawrat wala fi al-injil wala fi al-furqan mithluha ilaaha muhammad abuurayma ku dhaartay suuradaas suurad lamida injilna kumay soo dagin furqaanna kumay tawraanna kumay soo dagin quraanka kariimkana suurad lamida kuma jirta rasuulku yiri allaamata ibn qayyim al-jawzi rahimahullah wuxuu yiri quraanka dhanba markaan eegnay waxa uu sharxayaa waa suurada faatihaduna waxay iyaduna ku soo ururtay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin wa markuu adoonku uu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka tiraadid alxamdulillaahi rabbil aalamiin markuu adoonku yiraahdo ilaahay baa la xamadani abdi adoonkaygi baa igu mahdiyay arrahmaanir rahiim marka tiraadidna asna alayya abdi ilaahay baa adoonkaygi baa amaanay maaliki yawmiddin marka tiraadidna majjadani abdi adoonkaygi baa weyneeyay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin marka tiraadidna ilaahay baa la hada bayni wa bayna abdi taasiyani adoonka naga dhaxaysa alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka tiri xamadani abdi ilaahay baa adoonkii baa igu xamdiyay arrahmaanir rahiim marka tiraadidna arrahmaan wa alihi rahmadiisu adduunka inta la joogtay khalqigo dhan ay wada gaadhay weeyaan arrahiim ee naxariistiisa banka qiyaamana muuminiinta khaaska uga dhigay weeyaan asna alayya abdi adoonkii way amaanay buu ilaahay leeyahay maaliki yawmiddin marka tiraadidna yawmiddin wa yawm al-ba'th wan nushur maalinka ilaahay milkiga iyo talada iska lahaayo marka tiraadidna wuxuu ilaahay leeyahay majjadani abdi adoonkayga uu weyneeyay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin marka tiraadidna ilaahay baa kula hada bayni wa bayna abdi taasi ani adoonkay naga dhaxaysa waa hagaaga adiguna ay caabud oo adoonkayga oo dhabay in noqo anigana kaalmahaaga gargaarkaaga igu daa sidaan doonaya yeel sida doonaysan ana ku yeelay sirta noloshu halka bay ku jirtaa dhoofa ka raadin qaxootiha ka raadin hay'ad loo shaqo tagana ka raadin wadankeena ugu shaqo fiican waa ka hay'ad u shaqo tagan
hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeenoo hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore ahayd uu ka qaadatay yaa miskiin cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو الدين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن الصارة إسلام كأقول سعوتا وسد عن سبيل الله يقول نقضه لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما دولي الله إيمانكو قلبكو دولي الله هل دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ما هم عرب كدولي الله من ما ديال لا دافسن كرماها ومن قلبكو إيمانكو فريستي وير الله كو تعلق سن هو يا بقرك ما كلها إن النصرانية ده سو قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameystiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelay buu kay wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelay buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوي يعني يكون إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكيني هلان وإلهي قرقار قيس الله بلن قاد إنه كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهد بيد وحبوه ما أركان فحال الله السماء مركا بغركي أمر وحكو بحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonin nabi ilaahay markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo maxaa loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyonan haysano ka hooyaya buu kay naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kay boqorkii baa yidhi kan dilgiis waxay noo tari maaye haska sii dayno waayay sii daada ma kula tahay buu kay madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaas uu magaal baan madaxa ka dhunkada sagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yiri hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii daynaysid haa waan ka dhunkan hadii kale ka dhunkan maayo buu ku yiri markaas uu waxaga iga dhunko markaas uu magaal baan madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii daynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ilaa bariirba jihaad baan ku soo celinay kala bixinayna ajiib asxaabta rasuul ay soo galeen Umar ibn Khattab baa soo dhaweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudaafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadda u baxay hebel dibadda u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay
gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaad tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar kule gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin Umar baa yiri baluka hadiya wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkata wuxuu iyaka ku soo daayay buu yiri si marka uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudafa oo madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yiri anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay sidii doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladhiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى هيري الذين آمنوا كو إلهي رميي قلوبته طاعد إلهي ذكرك إلهي أي كو حصل يسو إلهي بعد ألا انتبهوا إلهي بعد إنه نصلحين يا إلهي بعد إنه يريا إلهي بعد إنه خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بعد كو ورما كله warqalbigii naasi wax kale ku xasilay maayo aniga macrifadadu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaysta qalbigu quraanku ku raaxaysta qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaysta qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaysta nacam nina aymada muslimiinta kamida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarru inda as-sahar iyo waqti as-sahar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajoodo wa khala'ul badni iyo calooshaada mar walba badnaata wa kasratu siyam bi culmadu leeyahay inuu qofku soonkiisu bato wa mujalasatu as-salihin dadka war wanaagsano la fariisto shantaas ay culmadu yiraahdeen qalbigeeda weysa تلاوة القرآن بالتدبر كان القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف نجمع أصحاب رسول رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سده بينك أقول علينا يا أبو برياج وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كهبينك مركو صلاة الليل كي حد مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وطا ما خير قيسي ماها أرنتو يكوين انتهي صلاة بان وطا صلاة دوالو بدادا يا لا شك لكن مؤمنكو هلكا مركو بنك قيامه إلهي هرجوك صدو صلاة يسون قيسي ايقي مايه إلهي الرحمة دي صبو ما انت ايقا يغفك مؤمنكو إلهي الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواغ وغبريه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو نبي أنه حنوصدو حنونك لا دعي أي نبي قال له يري صلاة دي باتاق النبي الله مركاسو النبي قال أبو بكر وشيغ أمد صلاة كبحيه عائشة رضي الله عنها وأكتاقني النبي آيات كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هدو قرآن كأخرينا وهنتي سآيا قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسكيد كي نبي سو غلي وحو اركay inaan yar oo suurada tuur ku tukanaya qiyaam leelkii quraankiisii buu dhageystay markuu gaaray yarkii yara inna cadaaba rabbika la waaqi cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaarayna dhulku ku dhacay Umar bin Khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhanbu xanuunsana xanuunkiisa meeshuu kaga yimidna lama ogeyn مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكيس أكسي حدبي تري
sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaasay ku tiri war maxaa la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaaba hal aayadoo qur-aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeday nabigeennu calayhi salaatu wassalaam waa kii abi bilaal baa u yimid ee salaaddii markay gaadhay yaa rasuulallah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga uu dhulka ku hayayna way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar ina fii khalqi asamaawaati waalardi la aayaatin liuli lalbaab aladiina yatafakkaruuna fii khalqi asamaawaat ilaa aakhiri suurati aali cimraan aayadahaasaa xalay igu soo degay buu nebigu yidhi ninka aayadaha akhriya eenan tadabburin een tafakurinna kaasi uu khasaaray buu rasuulku yidhi tadabbur saddex camal markaad hayso haddaad qalbigaaga khushuucaad ka weyday bay culimmadu yidhaahdeen qalbigaagaasi uu dhisan yahay horooda soo daweeye qur-aanka markaad akhriyayso iyo salaadda markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid qur-aanka markaad akhriyaysid iyo salaadda markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexdaa marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay kaa daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimmadu leeyihin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilahay alla hortagin qiyaam alleyl waa simaau saalixiin in habeenkii la kaco allah ina siiya kulligeen kii ka hadlaba des kii sifaadku uu wanaagsan nigala hadla ha u malin inuu isagu sidan yahay may hadalkan waxaan uga hadlayaa in aniga nolosheedii yimaadiin baan doonayaa iimaanka waxaan uga hadlaa iimaanku inuu ziyaadaan doonayaa salaada waxaan uga hadlayaa salaad xaqiiqa ilaahay inuu siiyaan doonayaa sifaadka wanaagsan waxaan uga hadlayaa sifaadka ilaahay inuu siiyaan doonayaa wallaahi umaan fadhiisatay inaan wacdiyo anigu waxaan halkaa u fadhiistay naftayda inaan wacdiyo qiyaam alleyl xasan albasri raximahullah nin asmara buu ahaa oo laakiin wejigiisa nuur ka baxayo markaasaa lagu yidhi yaa sheekh yaa abaa saciid baa lagu yidhi yaa abaa saciid waa sidee baa lagu yidhi dadka waad ka nuur weyntahe wuxuu yidhi saacadaha ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buuhi anigu ma doonaysaa wejigaagu inuu nuuro haa saacadaha dadku ay hurdaan kaco walow 2 rakcad ha noqotee 2 rakcad tuko walow rakcada witridana ku daro witridaada dib u dhigo markaasaa shurafaau nnaas dadka maalqabeennada iyo dadka madaxda iyo dadka tujaartu ay dhaleen iyo wujahaau nnaas baa iman jiray majliskiisa waxaa lagu yidhi yaa xasan yaa ayuha alimaam dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yidhi madaxdii o dhan baa ku imanaysee wuxuu yidhi waxay haystaan baa ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yidhi waxay haystaan baan macnaa adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anigu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintaan u jeestay jannadaan u diyaargaroobayaa naar baan ka cabsanayaa ilaahay xaggiisaan u dhaqaaqay markaa waxay haysteen markaan faraha uga qaaday waxaan haystana iyo kaa u baahday buui wtadaruc cinda saxar muminka waxaa laga rabaa habeenkii saacadaha waqta saxarka inaad ilaahay la munaajooto munaajaat waa maxay munaajaat ya allah albaab kasta u xidhmaye albaabkaagaa furan ilaahu naxariistaadaan u baahna waa saacadaha ilaahay jala wacalaa uu nebigu sheegay samada adduunyadu yimaadaa nuzuulan kamaa yaliiqu bijalaalihi markaasuu ilaahay odhanaya ayaa wax weydiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa dembi dhaaf doonaya dembigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka warramo ilaahay barino soo baahi ma lihin saacadahaas munaajaat habeen ayuu nabigeennu sal alla alay wasalam markuu qiyaamkii uu bilaabay ayuu nebigu 2 aayadood oo keliya siduu ugu celcelinayay ayuu waagu ugu dilaacay rasuulka
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدا آيادات آيادنا waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabi oo ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen ay caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doonay orani doona yaa ciisa ibna maryama a anta qulta linnaas ittakhidunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah nabi ciisow yaa ciisa xataa yaa nabiy allah la odhan maayo yaa rasuulullah la odhan maayo yaa ruuxullaahi la odhan maayo ciisa ibna maryamow war yaa ciisahan ina maryamow baa la odhan doonaa maadaa ku yidhi reer bani israa'iil anigiyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigtoona caabuda maadaa ku soo yidhi qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsii wala aclamu maa fii nafsik inaka anta callaamu lguyuub maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii warabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم